shirkadaha Dahabshiil Group iyo Somtel ayaa waxay ugu deeqeen $200,000 dadka ay abaartu ku saamaysay gobolka Awdal. Labada shirkadood ayaa waxay noqdeen shirkadii ugu horeeyay ee gaar loo leeyahay ee si toos ah uga jawaaba baaqa gurmadka abaaraha. Deeqdan ayaa lagu bixin doonaa cunto, biyo iyo kaalmooyin degdeg ah oo muhiim ah, waxaana ay qayb ka tahay dadaal bini'aadanimo oo ballaaran. Gobolka Awdal ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee abaartu saamaysay Geeska Afrika, iyadoo daaqii uu engegay, ceelashii biyuhuna ay qalaleen, xoolo badanna ay ku baaba'een, halka dad badan ay barakaceen iyagoo raadinaya cunto iyo biyo. Maarayaha guud ee Dahabshiil Group, Mudane Cabdirashiid Ducaale, ayaa waxa uu sheegay in doorka ganacsada gaarka loo leeyahay uu yahay mid muhiim ah marka ay timaado u gurmashada bulshada wakhtiga ay dhibaatadu jirto. Waxa uu intaasi ku daray inay aad uga walaacsan yihiin dhibaatada haysata dadkeenna, islamarkaana mas-uuliyadi ka saaran tahay inay si degdeg ah uga jawaabaan marka ay dhibaata dhacdo. Deeqdanna ay qayb ka tahay ballanqaadka joogtada ee Dahabshiil Group ka saaran bulshada. Dahabshiil oo ka howlgala in ka badan 140 waddan ayaa muddo dheer waxa uu ka shaqaynayay gurmadka masiibooyinka iyo horumarinta bulshada. Somtel oo ah qaybta isgaarsiinta ee shirkadaha Dahabshiil Group ayaa door muhiim ah ka ciyaarta xoojinta isku xidhka bulshada. Labada shirkadood ayaa si joogto ah ugu deeqa adeegyada caafimaadka, waxbarashada iyo gurmadka degdega, waxaana ay ugu baaqayaan dhammaanba ganacsada kale iyo qurbo-joogta Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan gurmadka abaarta. Deeqda Dahabshiil iyo Somtel ayaa waxay timi xilli dowladdu ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah, isla markaana la bilaabay dadaallo qaran oo qayb ay ka yihiin dowladda, bulshada rayidka iyo ganacsatada.